maalin maalmaha ka midu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oo dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum camaa araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii berye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso ood iga heli doontaa nin reer madiinoo ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weyddiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sugi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weyddiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayey ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jadhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybkee maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaaluu dhinto laqad kunta fii khaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahi iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana hawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay
aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo, laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa. wa min aayaatihi alleylu waannahaar, habeenku waa aayad weeyaan. aayad waa maxay macnaheegu? waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo. lab iyo dhiddigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo. faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa. caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynaayo. laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulaayo waa nidaam qayba, waa laynaga qariyey, ma arki karayno. sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin, gacgacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa, dhegta maqalkeegaad arkaysaa, lugta socodkeegaad arkaysaa, madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa, laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan. laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan. haddaad tidhahdaa maxaad la ooyi? waa kan qofkii gacan kama gu'in, lugna kama gu'in, dheg lagama goosan, oo dhan yahay, jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay, maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaa baa meesha ka baxay. shayga qiimaha le waa maxay? waa ruuxdii. oo ruuxda maad aragtay? may. si aad u garanaysaa? qalbiga ayaa garanaya. alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu. qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya. shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan. ruuxdu waa qayb, waa lagaa qariyey, ma arki karaysid, laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa. caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan. nidaamkan caalamkao dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulghayb la yidhaahdo. marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa. su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka, waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay. meheraddaydu ima rabbaynayn, allah baa i rabbaynayey. dukaanku ima rabbaynayn, ilaahay baa i rabbaynayey. beertu ima rabbaynayn, ilaahay baa i rabbaynayey. dawladdu ima rabbaynayn, ilaahay baa i rabbaynayey. xooluhu ima rabbaynayn, ilaahay baa i rabbaynayey. anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulyaalloo dhane, bal amarka ilaahay baan ku noolaa. laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay, nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegay. mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay. mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay, haddaynan baxeen maba noolaaneen. mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay, beer. mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay. reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay, letaraadkii macaashkii. may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu. aladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waaladii yumiitunii ثuma yuxyiinii. waa usuul aliimaan, usuul alcaqiida. waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto, shifaadu xagga ilaahay bay ka timaaddaa. dukaankaaga iyo meheradaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan, laakiin risiqu xagga ilaahay buu ka imanayaa. waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan, macbuudku waa ilaahay weeyaan, ka cibaadada mutayste waa ilaahay weeyaan, ka baryada mutayste waa ilaahay weeyaan, ka rajaha mutayste waa ilaahay weeyaan, ka cabsida mutayste waa ilaahay weeyaan. keligii rajee, keligii ka cabso, keligii baryo, baahidaada keligii u sheego. rabbigay waa allah, diintayduna alislaam, dhaqankaygu waa islaam. wax kale anu kuma dhaqno, wax kale ma aaminsani. diin baan u noolahay, diin baan baranayaa, diin baan ka shaqaynayaa. qofka diin baan ku jeclaanayaa, diin la'aanna waan ku nacayaa. man axabba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi. ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin, hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin, hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan, hadduu cid nici ilaahay dartii u nici. kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow.